أسمع كلام ستوي قبل لما ببرتا قول إيش وقلت قبل لما ببرتا كل جيب أرديكا مركز رجع وكا وسطها وحلا يقافك تحنك وبارسين يقافك دولة أوتين وحن إسلامي وكافي كالداري قافك وبارسين وما لو قشر نلو وحالينا ضلك على الأليو كورميرا تاما هم بلاي حقادته ما كبرياش وينو فديان waxaa leen ilaahay amaalkiina jannaha ka dhigo dareenka aad u faraxsanahay 12 sano waxa soo haminaya maanta noo dhamaatay waxaan leeyahay waxaan farxad la qaybsanayaa familkayga waalidkayga hooyadii macaan iyo aabay macaan waxaan leeyahay guushiina maanta ka dhaweeyay goorayso waxa waaye oo dugsiga saraan ka qalin jibinayo waxaan leeyahay faraxsanahay congratulations ardayda dhamaan ka qalin bedelatay iskoolada waxaan si gaar ah wax shumeenaya ama maartay u hambalyeynaya macallimiinteeda Adult Primary and Secondary School si qaas ah maamulaha Dayo iyo macallin Maxamuud waxaan leeyahay oo maasintiin waa guuleysanay insha Allah waxaan rajaynaynaa kaalmaha koowaad in gaalkacyo ay gasho insha Allah sanadkan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta imtixaankii inuu gabagabay waxaan imtixaan lama dhigi karo bir waaye Soomaaliland waa gobol ka tirsan Soomaaliya dareenkayga maanta aad iyo aad buu u kacsan yahay waa faraxsanahay maadaama imtixaankii iisoo dhamaaday 12 sano أصدقائي نجد وحرجيني يعني نجد في عن أردنا نروح حرجيني يعني نجد في عن لما أنت ما دايك معلومة أنت دنبوار راح يسنا وأنا سلام يا كلام كل من وراح يسنا وراء الله سبحانه وتعالى ورتمات كواد سكله درين كان ما أنت قدام يسافرنا الكتحان كوسارة أحبر الشدة داية تعلن سرعة قاعدة يسي أيام ما أنت نوصل جوبي marka waxa rajeenayna horta natiijo qurux badan Ilaahay naga siiyo wasaaraddu imtixaanka waa soo adkaysay shuruucdana waa soo adkaysay waxa moodaa imtixaanka iyo waaqaca in farq weyn u dhaxeeyo wasaaradda qaabka waxbarashada iyo manhajku soo diyaarsan yahay iyo imtixaanka u diyaarisay way isleeyihiin laakiin waxa la rabaa in lagu jaangooyo xaddiga manhajku leeyahay iyo imtixaanka in la isku jaangooyo wasaaraddu waxay fiirsatay inta fasal ardadu ay ku qaateen dugsiga sare laakiin ma fiirsan xaddiga form 4ka iyo xaddiga baalkaliya fasalada la soo dhaafay inta ay leeyihiin in imtixaan laga wada keenaa waaqaca waxbarashada xilliga lagu jiro iyo imtixaanka iyo ardaguna is waafaqaana waa adagta marka wasaaradda waxaan ka codsanaynaa shuruucda way adkaysay say shuruucda u adkaysay waxaan rabnaa in nidaamka sanad dugsiyeedka waxbaridda qof waxa arkaysa waxa lagu soo badinayaa form 1 oo kale 3 sano ama 2 sano qofka soo moog yahay سؤال وجه حسوستنا وعدكتها واقع لو جرى صوماليا من حالده dadka masxaladooda depression waay in marka form 1 loo soo diyaariyo arday form 4 ku dhibtoonay oo maalintii imtixaanka la galay qamiistii loo dhameystiray ardaygii manhajka 10rada ugu dambeeyay form 4 in form 1 su'aalo loo keenay imtixaanka loogu soo badiyaa waxa isleeyahay wasaaraddu waa waxay ugu bareertay waa waxay ugu tala gashay ardayda sanadka dhulka ku galiso insha Allah kariim waxa rajaynaynaa dadaal badan aan galnay ina Ilaahay nagu qadin laakiin wasaaraddeenu waxay u bareertay ardayda inay cuna qabataysa waxbarashada sanadkan shaqo quruxoon way qabsatay wasaaraddu macallimiin bay qaadatay dugsiyay la wareegtay waa hirgelisay nidaam waxbarasho tayo leh laakiin waxa rabnaa wasaaraddu inaysan waaqaca ka tagin mar walba aad baa u mahadsantihiin halkaan wax farin ugu dariya dhamaan ardayda oo ka qayb si guul oo amniga ugu soo dhamaatay maanta imtixaanka ah إن شاء الله واحد رجينا نتيجة قروح بدن وقت قروح بدن يو واحد قروح بدن ما أنت حاجة قصة بحو إحنا بيجي تون سنة وصل فرديان وما أنت سوش قصتين أو ما أنت أو أنت ودو بريتحان كالسعودي هل كان واحد فريق كلا ودري الدولة ده أو شيء يا سيد أمني وما أنت أو قاتين امتحان كسوق لو كسر ماله وحلا يقاف كتحان كبارسين يقاف كم دولة ده أو تين واحد إسلامي وكافي كالداري قاف كبارسين وما لو قشر نلو وحالينا ضلك على الأليو أمني ماشي كم تجرو أمني وحلا يقاف وحلا باريو أمني الدولة دنا يضلك يدقان كبا الله شقي الله يهاي قرأته وسارد أمني أنت سافر يا والسلام عليكم السلام درانك قاعد لما سوى كوبي كرو حقا waxaan ka salaamay waalidkayga qaasatan hooyaday macaan sidoo kale xaqan waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo macallimiinta maamulkayga iyo bahda saxaafadda oo jakarta ugu horeeyo waa in salaamiyaa ما كبرياش وينو فديان waxaa leen ilaahay amaalkiina jannaha ka dhigo la ilaahay ba mahad leh noo soo dhameeyay imtixaankii dhamaan iyo ardayda guud ee galay imtixaanka federaalka Soomaaliya aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa imtixaankaas guushii aan ka gaarnay iyo habkii loo ilaalinayay xogaa waxa moodaa sharciyada in ay wadaan kormeerayaasha xogaa inay kala dabacsan yihiin
kormeerana wuxuu ku ilaalinayaa si mataqaanaa inuu adiga ku waardiinayo midna wuxuu ilaalinayaa si sharciga iskoolka si loo soo diray inuu ilaalinayo marka waxa dhilaa kulli taasi dhacday waa tagtay ardada naga dambayso 2025 geli doonta in shuruuc lagu waardiinayo sidaan si ka fudud looga dhigo waana annaka fikradayda ka arday ahaan taayada aad bay noogu cusleetan teleefanaduna waa cuslaayeen annakuna waa cusleen sidaa darteed waxaa amar ku bixinanaa in hal qof loo xareeyo teleefanada sharciga soo socda 2026 inaa imtixaankii noo dhammaaday si sharaf iyo karaamo leh hal su'aal baa iloonay dhammaan arday waxay ogeysiinaya inaysan ilaawin Soomaaliya inay tahay gobol ka tirsan Soomaaliya magacii waa cadeesi horta niyow imtixaanku waa fududaa maanta tiim safka dambe maadaama aan ahay imtixaanku inuu fudud yahay ardayda mustaqbalka waxaan noqonaynaa madaxweynayaasha teeda kale imtixaanka markaa ku jiray waxaa soo xasustay in Soomaaliland gobol tahay taas oo kale oo sitay qabiil baa u bartaa gulaha shuruuca u garatay qabiil baa u bartaa kiligay baa arday ka marka adiga waa ka wasata assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh magacay waa Faadma Abshir Muuse wax kamid ah ardayda exaamka maanta u dhamaaday exaamku si wacan ayuu nagu soo dhawaad alxamdulillah inkastoo caqabado jireen waqtiga imtixaanka galayna maanta wuxuu nagu soo dhamaaday si guul ah waana hambalyeynaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed imtixaanka dawladda u dhamaaday qaasatan ardayda reer Gaalkacyo si qaas ah waxa ugu hambalyeynaa ardayda reer shacab ee wax soo baranayna 12 sano in ka badan mustaqbalka waxaan rajeynayaa heerka si fiican inaan gaaro waxaan rajeynayaa jaamacadaha dalka wax ka barto kuwada ugu tayada fiican waxaan ahay sidoo kale business woman dhalinyar waxaan doonayaa in businesskayga iyo kor la igu qaado dhammaan inta aragtay muuqaalkayga businesskaygana waxaa ku qoran Ruwayda collection waxaa gada dharka kala duwan ee ilmaha kuwa haweenka kuwa ragga kabooyinka iyo wixii la mid ah wax kasta oo ganacsi ku saabsan xaggaas ugu imaan kartaan raxiim awalan waxaan mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala markii xigta waxaan mahadcelinayaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed iyo bahda daadihinaysa imtixaanka intaas ka bacdi waxaan xaggan rabaa inaan fariin uga diro ardayda Soomaaliyeed ee imtixaanku u dhamaaday maantay si wanaagsan ugu bilowday si wanaagsan ugu dhamaaday waxaan rajeynayaa insha Allah natiijo qurux badan oo ku wada farxdaan oo ku wada qanacdaan ila Ilaahay inoo siiyo dawladda iyo wasaaradda waxaan inta ka bacdi u hambalyeynaya xaggan fariin gaar uga dirayaa iskuulka aan ka soo baxnay adalta Gaalkacyo waxaan leenahay guriga gooniyo asiga ardaydiisa natiijo qurux badan ay rajeynaa waayo maanta soo raaxaystay anigoo afka ku hadlaya afka adalta Gaalkacyo waxaan rajeynayaa natiijo qurux badan waxaan rajeynayaa farxad reereen imtixaankuna uu fududaa iisto taariikhda Soomaaliya la galay wallahi kormeerayaasha zaid oo adkaayeen inkastoo naagana baarayeen nagu adkeeyeen waxba la gelin laakiin anagu aan waxba lama aan gelin waa isubnay arday la tiisa u nahay qashi waxaas oo dhan وين غير عقاد waxa kala gulumna macnaa inaa macniyo waxa waraaqada cad aan qaadan karin sababtoo kala hadmaan insha Allah markii laga shaqeynaa waraaqada cad aan qaadan karin sidoo kale waxa macnaa saameyn u yeelatay in macnaa ardaan waxba aan qashin hadaa geeska fiirisid bilaa sabab laga kansalayo soo markaa aniga ma hadda labaad waalidkay hooyaday macna ugu soo intaas soo dadaalisay intaas igu soo dhimanaysay inta heerkan soo gaarsiisay hooyaday macna ardacad ciise waa maasan tahay kuni coacher sidoo kale iskuulkayga maamulkayga macna Cabdirashiid Maxamed Amiin Daayo waxa la maamul waa maasan tahay heerkaada soo gaarsiiyay heerkan iyo heerka wanaagsan iyo heerka si qurux badan baarajeenaya nashiid qurux badan baarajeenaya inkastoo aan ma macni wax qashay waxaas anaga aan isku fiirin waayo aqoonteena iyo maamulkeena intuu soo kala taagna ayaa ku kalsoonaa wasaaradda waxbarashada ay tacliinta sarana xalay oo maasantiin imtixaanka sida u soo adkaysan waan kaga mahad celinayaa wabillahi tawfiiq salaam dhamaan ardayda waxay rajeenayaan guul aan ku wada farxano dhamaan kormeerka lacagta cunta aan u adkaysay suuxin bayna gashay ilaa mahad dhamaatay u sugnaatay exaamkii maxallaayay 6 bari kadib nabad noogu dhameeyay exaamka ma adkaan uu iska fududaa inkastoo qish iyo waxaas dhan loo diiday waxba la gelin saastay aadna ugu fududaa waxa rajeenaa natiijo qurux badan aad iyo aad baan kana mahadsantihiin kormeerayaasha dhawaato aad iyo aad weyn binagu haayeen oo mataqaanaa baaritaan badan maanta dhan indhayn flag alxamdulillah anaga waxaan maana wadanin exaamkeenu noo soo dhamaaday si nabad ah waxaan rajeenaa natiijo qurux badan ee balaasina ku baaso insha Allah oo kadibna helo jaamacad free ah mustaqbalka xarajeenaa inaan noqdo dhakhtarad neersin ah insha Allah oo wadanka wax ka bedelno maanta aad baa u faraxsanahay maadaama aan iskuulka soo gabagabeeyay
farxadeeda lama koobi karo waxaan u mahad celinayaa waalidiintay baan u mahad celinayaa walaalahay baan u mahad celinayaa dhammaan inta waxbarashada igala soo qayb qaadatay iskuulkayga Sheekh Cali Samatar aan dhowrka sano joogay xaga waa ka salaamayaa asxaabteyda salaamayaa saaxiibtay anfac saaxiibtay fatxi waxa leeyahay saaxiib guul insha Allah waxa kale oo leeyahay mustaqbalka heer wanaagsan ina gaarnahno ta kale waxa leeyahay kormeerayaasha gobolka Mudug islaantii orange card ka ahaydna naagtii indhashareerka tii xijaabka weynoodo jijiidka qabto aad iska bedeleen waxa leeyahay islaantaas xuntaas kormeerata ma ahayn balaay ha qaadato marka guul baa inii rajeenaya inkoo dhan waxa rajeenaya inaad guulaysataan aad wada annagoo dhan aan wada keenno saa u nahay ardada gobolka Mudug insha Allah bidnillaahi kariim